السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخيارتك وحير عمرك يوتيوب هبي ونكسن رمضان الكريم أنفر ونكسن وعيدين سلامين مركو هوري السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخيارتك وحير عمرك يوتيوب caawa waxaan usoo istaagay caawa ujeedin labadeeda dhinac asxaabteeda ka maqanta caawa waxaan soo istaagay keligayga waxaan rabaa inaan ka hadlo arrin ku saabsan dhalinyarada Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed mar walba waxay u baahan yihiin in wacyigelin lagu sameeyo in ma aragtay la garab taagnaado ninka ragga xataa keligii ahaan wuu samayn karaa misna awood wuu u yeelan karaa inuu keligiis xakameeyo oo qaab wax qabso ama wax inuu qabsado isku hogaamin karaa asigoon maanta waalidkiis garab siinin walaana garab siinin nafsad ahaantiisa ayuu ma aragtay hami yeelan karaa hamigiisana wuu ku guuleysan karaa xaqiiqda markii laga hadlo marka caawa hadduu ilaah karaa noqdo waxaan rabaa inaan ka hadlo arrin ku saabsan dhalinyarada insha allah dhalinyarada waa horta waxa waaye lafdhabarka nolosha dhalinyaradu waa sheyga keliya adduunka keliya lagu dhaqaajiyo dhalinyaradu waa sheyga keliya mar walba hamiga lagu yeeshto oo dhalinyaro wax ay soo saaraan mas fikir ha ahaado mase xoog ha ahaado mase qaab walba ha ahaato waa waxa dunida keliya maanta lagu kala socdo inay tahay dhalinyaro caawa waxay mawduuceen aan ka hadli doona hadduu ilaah karaa noqdo waa dhalinyaro insha allah dhalinyarada mar walba ha jiraan hana joogaano khaasatanna Soomaali weyn aad ayaan idin salaamaya aad ayaan idin taageersanahay aad iyo aad waan idin jeclahay marka ugu horey marka labaad xaqiiqatan waxa horta dhalinyaradu waa shay aad iyo aad u qaali ah dhalinyaradana ma ahan ma aragtay maanta lagu taagsado masan ma aragtay hamigu leeyahay in garab lagu siinin shakhs walba dhalinyaro hamigu leeyahay oo go'aan uu leeyahay mowqif uu leeyahay haddii garab lagu siiyo waxaan aaminsanahay wax walba adduunka markaas ma aragtay ku cusub ama in lagu soo kordhiyo laga yaab inuu soo kordhin karo shakhsiga dhalinyarada marka dhalinyaro mar iyo lababa hanijabina hamigiina ha ahaado qaabkaad idinku tilaabo qaadi lahaydeen qaabkaad idinka mustaqbalkiina kaga fikir lahaydeen qaab alaal qaabkeen noqoto inaad noloshiina horumar gaarsiin lahaydeen hawalwalina haddii maanta ha tahay maanta qof oo waalidkiisa ilaahay oofsaday oo xagga ilaahay ka mareen hawalwalin mase ha ka niijabin inaad adiga meel gaaraynin xaqiiqdata meel waad gaaraysaa asbaabta meel ku gaaraysaa waxay tahay niyadaada mar walba ku kalsoona in adiga kaliya waxba qabsan karto niyadaada mar ilaba ku kalsoona inaad dadaalkaad aad samayso inaad ku guuleysanayso maalin hadduu ilaahay karaa noqdo marka xaqiiqatan tan dhalinyaradu waxaan leeyahay dhalinyaro mar ilaba hanijabina hamigiina ha ahaado mid mar walba ma aragtay midkaad hamisaan inaad go'aan u gaartaan inaad ka mara dhalisaan ha ka fikirin adigoo shakhsiyan inaadan gaarin xaqiiqatan waad gaaraysaa adduunka dad badanaa soo maray caalamkan qof aan maanta waalid ka dambeynin oo maanta ma aragtay waalid adag ka dambeynin oo shalay dunida kusoo silcaya maanta horumar weyn ka gaaray waxaad arkaysaa shakhsi bini aadan oo muddo soo silcayo oo soo rafaadayo oo soo maxaa la dhahaa wax walba soo qabanaya haddana ma aragtay guushiis gaalada marka gaaray waxaa jiro ha ku fikirin marba ma aragtay kaligaagaa tahay oo waxba ma qabsan kartaa sidii wax waad qabsan kartaa niyadda ha iska dilin xaqiiqatan anna taas ku hay daas waan ku leeyahay wax kale ma ahan ha u malaynin adiga maadaama waalidkaaga xagga ilaahay kaa maran inaadan waxba qabsan karin wallahi aad iyo aad baa wax weyn u qabsan kartaa hamigaagana ha ahaado mar walba fikirkaaga inaad ka dhabayso fikirkaaga ha ka niijabin talaabtaad qaadayso iyo dibnaha u noqon mar walba mid u hoggaansamo fikirkiisa inuu ka mira dhaliyo fikirkaaga haddaa mar walba ka mira dhaliso kolley waxaan aaminsanahay shakhs walba oo adduunka horumarka gaaray inuusan waxba kaa dheereen inuusan waxbana kaa saraynin sababtoo ah sida adigoo kale aad tahay uu yahay sida adigu fikirayso u fikiraa inta lixda lixad aad leedahay uu leeyahay fikirkaaga ha ahaada laakiin waxaan is dheeryahay oo keliya waxa waa muraal hadduu shakhsiga bini aadanka muraal uu leeyahay muraalkiisa waxaan aaminsanahay inuu wax walba uu fikirkiisa kusoo dhaco mase han walba uu fikirkiisa ka leeyahay inuu ka dhabayn karo weligaaga mar laba iyo mar saddex iyo mar afraad waxaan ku leeyahay fikirkaaga ha ka niijabin go-aankaad leedahayna haddaad rabto inaad qof la tashato qof adiga ku jecel oo fikirkaaga iyo mowqifkaaga inuu kula dhabeeyo jecel kaga tasho hala tashanin qof aadan micnaha guushaada inuu kaaga dhabeeyo jecleen hala tashanin waxaad mar walba la tashataa shakhsiga bini aadanka keliya oo adiga wax ku qaban karo ama aad is leedahay ninkan guushaada ayuu macnaha kula jecel yahay haddaad la tashato qof aan guushaada jecleen waxaad ogaataa inaadan weligaaga meel gaaraynin xataa aadan abuuri karin hal geed oo yaris inaadan abuuri karin daas waan ku leeyahay wax kale ma ahano waxaa mar walba muhiim ah inaad fikirkaaga qofkaad adiga jeceshaha kula jecel hamigaad leedahay inuu meel kula gaaro inuu ku gaarsiin karo fikirkaaga dhabta ama fikirkaaga xorta waa muhiim fikirkaaga dhabtana waxa waa mar walba waa ka mustaqbalka ugu hogaamin doono shakhsi dhalinyaraad tahay maanta dhalinyarin wax waa ku qabsan kartaa nin dhalinyaraad tahay hamiyaad leedahay ama gabar iyo dhalinyaraad tahay hamiyaad leedahay weligaaga hamigaaga dib ha ugu dhicin haddaad hamigaaga dib ugu dhacdo ogow noloshaad waa soo xirxirtay noloshaada mar walba ha ahaato mid murtida aad leedahay mar walba kaaga dhabayn karto sababtoo murti aad leedahay oo fikraad leedahay oo garaad dhalinyarimadu waxa waa shakhsiga markuu mar waa mid mar walba ka shalaayo oo u shalaayo sababtoo dhalinyarimada wax lagu qabsadaa dhalinyarimada wax lagu horumar lagu gaaraa dhalinyarimada wax walba lagu qaban karaa sababtoo dhalinyarimada waxay tahay midda fikrinta kaligaaga ma aragtay xaqiiqatan haddaad maanta tahay qof wax baranaya waxbarashada culays saar waxbarashada biri wax weyn ku anfacaysaa
haddaan wax baranayno maanta waalidkaaga macnaha kugu soo dadaalin oo waxbarashaadan galin mustaqbalkaaga waxaad ka dhigtaa adoo xoogsataa inaa xooggaada aad ka tanaasusho ama aad ka gudubto ood meel ka gaarto xaqiiqatan waad ka gaaraysaa asbaabta ugu gaaraysa wax kale ma ahan waxa waaye niyadaada dhabta ayaad ka dhabeynaysaa hamigaaga dhabta ayaad ku dadaalaysaa fikirkaagana midka adiga ku khuseeya aad ka dhigaysaa haddaad fikirkaaga midka adiga khuseeya mar walba ka dhigtana waxaan aaminsanahay aan hubaa inaad meel gaaraysid waalidkaagana hadday kuu nool yihiin oo maanta aysan waxba kuu awoodin oo maaragtay awooddaada ama noloshaada ama hamigaaga ama go-aankaaga eegan kaaga dhabayn karin ha ku adkeenin adiga fikrad ahaantaada fikir inaad adiga isbeddel keeni karto haddaad shay aad jeceshahay oo maalinta waalidkaaga kuu awoodi waayo ogow shay kale aad adiga ku horumar gaarsiin karo ama fikirkaaga horumari karo ayaad gaaraysaa xaqiiqatan tan dhalinyaro waxaan leeyahay hadduu yahay rag ama dumar ha ka niijabina ejka hadda aad joogtaan oo dhalinyaronimada aad ku sugantihiin fikirkiin ha ahaado dhalinyaronimadiin inaad waxba soo saari kartaan haddaad dumar tahayna gabar walaashiya waxaan ku leeyahay ha ka niijabin dumaraad tahay wax ma qabsan kartaa isna taas beenaad sheegtay dumaraan waxba qabsan karin ma jira adduunka dumar wuu qabsan karaa ragna wuu qabsan karaa labada ruuxna waxa waaye nafsadooda ayaga horumarin karo ilaahayna dumarkan uma eexanin raggan uma eexanin ilaahay labadaba wuu jecel yahay asiga gacmihiisa ku abuurtay run ahaanta waxaan idin leeyahay dhalinyaro hamigiina mar walba inaad ka dhabaysaan isku daya hamigiina inaad mar walba mowqifka gaartaan isku daya hamigiina inaad mar walba aad nooleysaan isku daya marnaba niyadaada ha dilin oo ha isdhihin adiga waxba ma taraysid mase shakhsiyan uu horo kaaga sareeyey oo macnaha waxba ma qabsan karto ninkan waalidkiisa u shaqeymaya waalidka shalay u shaqeeyay adiga kale wuu soo maray inuu macnaha da'daadoo kale wuu soo gaaray oo da'daadoo kale wuu soo maray wax walbana wuu usoo fikir wuu usoo silcay rafaad badan oo usoo maray adiga marka maanta haddii waalidka waxba kuu qaban hadhihin waalidka aad waxba iima qaban aniga ma aragta haddaadan wax ii qaban aan wax ma qabsana hadhihin kulli waxba qabsan kartaa xaqiiqada wax ku qabsan kartaa waxay tahay dadaalkaaga mar walba laga dhabeeya haddaad maanta tahay qof xoogsanaayo ogow xoogsigaaga maalinba meelkaa soo bixinaya haddaad maanta tahay qof ma aragtay oo guri iska joogo oo waxba qabsan karinoo ama qof macnaha waalidkiisa shalay ku xirnaayo nolosha waalidkiisa bas fiirna haddaad tahay isku day inaad banaanka soo baxdo oo isbeddel weyn aad samayso oo isku day bulsho badan inaad dhex gasho wax ka abuurato isku day dadkii hortaada noloshaad wax soo maray inaad wax weydiiso sababtoo ah noloshaas waxay tahay mid adiga mar walba ku bedelayso noloshaas waxay tahay mid mar walba mustaqbalkaaga bedesho noloshaada waxay tahay horta mar walba mar ila waxaan kaa codsanayaa shakhsiga dhalinyaro hadduu rag ama dumar inaadan u dhaqmin keligii qof keligii socod ha noqon weligaaga markaad soconaysid fikirkaaga waxaad lagu tashtaa qofka kaaweyn oo kaaga soo hormaray qofka markaas ma aragtay oo noloshaad adiga hamin jirtay laga yaabo inuu asigana hortaa usoo hamiyo maantana ilaahay u suurageliyey midaan ilaahay u suuragelinin oo kaleento koley maanta hadduu waalidkaaga hamin lahaan jiray uu waayey ha aminin macnaha adigan inaad waanaysid adigana ilaahay mowqif gooni uu kuu sameeyey waalidkaan ilaah mowqif gooni uu sameeyey mowqifka maanta waalidkaa ka dhabeey waxaa laga yaabaa in adiga ka dhabaysa waana ka dhabeyn kartaa sababtoo adduunka dad badan oo hadda caamin ah si hadda Cristiano Ronaldo Lionel Messi iyo dad kale oo fara badan caan waxay ku noqdeen shalay waalidkooda ma ahayn dad maanta caalamka laga kasay laakiin wiilashooda maanta heer waxay gaareen caalamka iska daaya adduunka intuu qaaradu ka kooban yahay aqoon lagu leeyahay dhaqaalana ilaahay siiyo dhaqaala waxba xisaab la'aan ay leeyihiin marka adiga run ahaantii markaan kaala hadlo dhalinyaro haddaad tahay noloshaada waxaad meel ka gaari kartaa ama aad ku horumarin kartaa waa xaqiiqda dhalinyaronimo waa shayga mar walba anfaco nolosha bini'aadamka dhalinyaronimo waa shayga mar walba bedesha nolosha bini'aadamka dhalinyaronimo waa shayga mar walba tiirku ee dhalinyaronimada waa nolosha bini'aadamka kolley waxaan mar laba iyo mar saddex idin leeyahay intaad dhalinyaro tahay ka faa'iidayso fursad dhalinyaronimada aad maanta aad haysato ha ka quusanin mar ilaba ha ka quusanin go-aanka dhalinyaronimo adiga niyadaada ku jiro mar walba waxaad niyeysataa in aad maalin meel gaari doonto kolley waxaan aaminsanahay waalidkaaga maanta horumar uu kula jecel yahay hadduusan maanta awood u lahayn hamigaaga wuu jecel yahay inuu kaaga dhabeeyo hadduusan maanta walaal kula dhal oo kula dhashay hadduusan dhaqaale lahayn hamigaaga wuu jecel yahay inuu ka dhabeeyo runta waxaan idin leeyahay mar laba iyo mar saddex iyo mar afraad hamigaaga waa midka dhabeyn kara waa adiga hadduu maanta ehel iyo kharaab waxba kuu qaban karin nafsadaada wax meel waa gaarsiin kartaa dadaalaan horyaa oo loo dhahay wuu gaaraa shakhsiyan dadaalina weligii ma aragti meel ma gaarin shakhsi walbana wax walba uu sameeya aragti waa usoo rafaad wuu usoo silcay maantana meeluu ka gaaraa marka dhalinyarana waxay ku gowaabinayaan mar koowaad iyo mar saddexaad inaadan ka quusan xaqiiqda dhalinyaronimada tahay dhalinyaronimada waa shay aad u wacan dhalinyaronimada waqti fursad aad weyn waa fursaddan ha iska beel dareynayna kulley waa walaalkiina cumarkeeyo tube oo idinla hadlaayo nolosha ku saabsan tahay arrimaha dhalinyaronimadu waa hadda maanta alxamdulillah waa ku wada jirnaa qofkii dhalinyaro hadda dhalinyaro uu yahay qofkii hor usoo weynaadana kulley ma aragtay fursadiisa hadda waxaa laga yaaba wuxuu xag ilaah ugu qoran ilaahay baa og laakiinse fursadda muhiimka ah maanta shakhsi walba markaa kala tashato waa dhalinyaronimo dhalinyaro waxaa idin leeyahay fursadiina ha khasaarinina dhalinyaro waxaa idin leeyahay fursadiina mar walba guulka gaara dhalinyaro waxaa idin leeyahay mar walba hamigiina adi ahaada hamigiina mar walba hamigiina ha khasaarin oo yoosan noqonin hami aan weligiis waxba gaaraynin mideeda kale waxaa idin ka codsanaa inaad iska ilaalisaan waxyaaba muqaadaraadka iyo balwadda sababtoo muqaadaraad iyo balwad wax ay hami iyo horumar ay ku gaarsiinaya malaha qiimka kaado
مخدرات يبلود إن فعل كاري من فعل كوم مدري هذا ما عندك عصبتها إن هذا كيف تكورون هذا أنا معناها هذا ولي قالنا وحكورون إن هذا بقول باني بقى هذا تكون أحجري جرتين وحبك كانوا إن تكفوا ولكن عمركيو إذن الله فضلا لايك شير كومنت سبسكرايب أصحابتك كلو ما أرتي سومالوين ميلو بيكونوشان waxaan jeclaan lahaa inay video ay gaarsiisaan haduu ilaahay karaal noqdo fadlan mar walba waxaan ka codsaa inay share gareysaan videoga markuu idin soo gaar walaalayaal waa bilcagsi waxaan ka bari inay mar walba share gareysaan waa walaalkiina Umarkeeyo wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh